بسم الله الرحمن الرحيم maadaama lagu jiro xilligii qalin jabinta jaamacadaha wadanka oo inta badan bisha 8 adduunkana waa sidaa meel badan komishanka tacliinta sare oo daana ka tirsanahay komishanka tacliinta sare afiyeenkooda rasmiga waa gudoomiyaha markuu maqan yahayna waa gudoomiyaha ku xigeenka sida xeerka madaxweynuhu sheegayo marka anigu labada midna ma ihi oo afeef laakiin xubin ahaan komishana waa khasab inaan erey ka iraahdo maadaama inta xeerarka iyo shuruucda siyaasadda soo baxayaan maalmahan dambe waxa aad u soo baxday in qalin jabinta jaamacadaha ay isku bedelaan fagaara siyaasadeed oo buuq iyo sawaxan iyo bulshada iyo la kala irdhaynayo kala qaybsanaan keenaysa marka hore guud ahaan siyaasadda waxbarashada sare iyo xeerka waxbarashada sare ee aanu imaka maraya gabagabada dhamaadka oo ku qormeeya afkeena hooyo hadhowna mari doona jarooyinkii xeerka loogu talagalay iyo dadka saamileyda waxbarashada sare ay kala qayb qaadan lahaayeen iyo xeer dejinta iyo golaha wasiirada iyo garyaqaanka guud iyo meelaha loo baahnaa mari doona sidoo kale waxbarashada siyaasadda sare ee qaranka oo iyaduna dhameystiran oo iyadana meelihii loo baahnaa mari doonto haddii alla yiraahdo qodobada ku xardhan iyo mabaadi'da siyaasadda waxbarashada sare ay ku qotonto iyo curfiga waxbarashada sare ee adduunka siyaasad ahaan iyo xeerarkooda adduunyada kale ka jira waxa ay tilmaamayaan inay marnaba suuragal ahayn maalmaha qalin jabinta ee ardayda waxbarashada dhameysato haday tahay heerka koobaad heerka labaad iyo heerka saddexaadba inaan la siyaasadayn maalinta waxaan oranaa siyaasiyiinta wadanku ha u hushaan wixii siyaasadaha fagaarayaasha ay leeyihiin ha u turaan maskaxda ubaxa wadanka iyo ardayda qalin jabinaysa maalinta qalin jabintu waa maalin muhiim ah oo ardayda dhameysatay waxbarashada muhiim ah waalidkii ku soo tabcayna muhiim u ah macallimiinta wax soo bartayna muhiim u ah sidoo kale muhiim u ahna jaamacadda magaceeda iyo sumcadeeda ma habooneen ardayda lagu rido qalbi jab in lagu rido nafsad daawicid iyo in lagu la xafladeeyo maalinta farxadeed buuq iyo sawaxan iyo siyaasad maha in siyaasiyiinta wadanka ama hoggaanka doonaya inay hormood ka noqdaan ubaxa wadanka inay iyagu tahriibka iyo inaan wadanka jeclaanin ay iyagu horseed u noqdaano ay ku goowaabiyaan si dadban oo togan ardaydii qalin jabinaysay adduunka maalinta qalin jabinta wuxuu u yeedhaa dadka foolaadkiisa ah ee magaca iyo sumcadda ku leh isla markaana nolosha meel hoose intay ka soo bilaabeen guuleystay dhinacay doontaba haato marka waxa haboon jaamacadaha wadanku maalinta inay soo casuumaan iyo kulliyaduhuba ay soo casuumaan foolaadka reer Somaliland ee magaca ku leh ee noloshana meel fiican ka gaaray dad aad u fara badan oo kala duwan baynu leenahay tusaalahaan kale mashaariicda waaweyn ee Somaliland ka hirgelay jaamacadii hormuudka waa Amuud Baahayd professor Saleebaan oo kale la soo casuumi kara si mashruuca guuleystay si loo hirgeliyay iyo maanta halku marayo isagoo waliba xilkii wareejiyay waxaan yeeri karnaa kale Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar oo isaguna Somaliland ismaheedii axad qarameedkii dastuurkii maxaan ku lahayd shirarkii dib u heshiisiinta Boorame oo adduunyadu takhasus badan dad badan ay ka diyaariyaan oo isku jira xalin khilaafeed dib u heshiisiin iyo dal dhisid ayaa laga wareysan karaa marka waxa dadka ardayda qalin jabinaysa ay u noqon karaan dadkaasi dad ay ku doodaan oo model oo kale oo ah sidoo kale waxaan u yeeri karnaa dadkii dambiishii halka qaybta ka ahaa Dr. Maxamuud Taani oo ufo isaguna ragii hormoodka iyo halbowlaha kamid ahaa waxaan waxbarashada iyo qaabka caafimaadka iyo maanta bulshada reer Somaliland hooyada reer Somaliland Dr. Adna Dhakhtar oo kale loo yeeri karaa laba saacadood la siin karaa si fiican oo faahfaahsan ayay warrami kartaa Somaliland waxay caan ku tahay ganacsiga oo kale oo ganacsiga dadkii ku guuleystay maadaama ay nahay budad maskax furan maskaxdooduna wanaagsan tahay baan u yeeri karnaa sida Maxamed Aw Saciid Geedi oo kale oo ganacsade gaari 60 ka bilaabay maantana ganacsiyada ugu waaweyn wadanka iyo imaaraadka
iyo adduunyada kaleba ku jira warshado kule xataa waxaan u yeeri karnaa kale dadka aqoontii iyo waxbarashadii labadaba ku guuleystay sida Dr. Ismaaciil Weel Rimid oo kale ayay u yeeri karnaa oo kaga haboon maalinta ardaydana oo higsi iyo himilo iyo cid ay ku daydaan oo la jinsiya oo la mida oo la deegaana oo isku qof yihiin oo halka gaaray oo adduunyada wax la soo qaybsaday waxa kamid oo kale dadka guuleystay shirkadaha ay maamulayeen guuleysteen Cabdikariim Maxamed iyadoo kale ayaa kamid oo shirkadii ugu horeysay dad wada leeyihiin oo shareholders oo cooperation oo inta leeg oo marka dambe sidaa u faaftay waxaan u yeeri karnaa oo kale Jaamac Omar iyo Maxamed Saciid u yeeri karnaa dadka waxbarashada ummadda wax soo baray iyo halka ay gaarsiiyeen baa iyagana qayb ka sida Cabdullaahi Muuse Qaalib iyo Mustafa Xaaji Ismaaciil culimada diinta ee ummadda iyo halka gaarsiinaya aqoonta dhisay Sheekh Ismaaciil Tabliiq iyo shirkadaha kale waaweyn ee farax badan leh Haas Petroleum iyaduna ay kamid tahay ayuu yeeri karnaa kuwaasna ku dayasho mudan iyo gamuur oo kale oo dad baa gaari maxaan ku dhahay dameerinta ka soo bilaabeen ganacsiga maanta $100 milyan haysta kuwaas ardaydu dadka qalin jabiyay iyo ardayda qalin jabiyay u baahan inay ku daydaan waa ceeb mana aha inta badan dhaqan wanaagsan oo suuban waalidkii kugu soo tabcay lacagta inta ka bixinayay xilliga lagu jiray duruufaha lagu jiray iyadoo ognahay in qofkii qalin jabinayay ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo dhar iyo gaadiid la sharaxo sida arooska oo kale curfiga waxbarashada iyo siyaasadda waxbarashada sare iyo dhaqanka waxbarashada ee adduunka ka jira midnaba maxaan ku nahay mid ay khusayso ama mid ka jirta maaha Soomaaliland waxay u baahan tahay manhaj ka turjumaya baahiyaheena kala duwan wax ka qabanaya manhajkaas wuxuu u baahan yahay macallin aqoon iyo xirfad leh oo la tayeeyo oo maxaan ku rahay xirfadda macallimaduna ay noqoto mid la jecel yahay way adduunka labada shaqo ee ummadda ku horumarto ee ummadda meel ay ku gaadho ayaa wadankeena aad mooday inuu ugu liito waa askarinimada iyo macallinimada wala macallinku waa waalidka labaad ee qofka sameeya ama wax la yiraahdo human engineering qofku sameeya marka xirfadda macallimada waa in la jeclaado askariguna waa ninka diyaar u inuu dhinto oo adigu noolaato saad nabad u hesho xoolaaguna marka waa inaynu ka fikirnaa macallimiinta iyo ciidanka sidii guriye ay galaan iyo caafimaad iyo waxbarasho bilaash iyo waxaan ku dhahay mushaharkooda iyo xirfadooda iyo sidii kor aynu ugu qaadi lahayn inta ka horeysana in ixtiraam iyo xushmad fara badan aynu siino marka waxaan oran lahaa oo aan soo jeedinayaa kulliyadaha iyo jaamacadaha wadanku maalinta qalin jabinta yaani ka dhigin fagaarayaasha qalin jabinta waxaan ku dhahay goob lagu ficiltamo oo arrimaha imika taagan buuq iyo sawaxan la geliyo waa inay noqotaa goob farxadeed laguna xafladeeyaa dadka qalin jabiyay waalidiintooda iyo jaamacadaba in da'yartaa yar sidii wadanka ay horumari lahaayeen waxaan ugu soo kordhin lahaayeen